magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagaga soo horjeeday faragelinta maamulka Puntland oo ku haya maamulka Khaatumo hadal dhawaan ka soo yeedhay Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo hore uga tirsanaan jiray maamulka Khaatumo iyo arrimo kale qaybaha kala duwan ee bulshada oo banaanbaxan ka qayb galay ayaa halkaasi ka hadlay waxaana ugu horeyn hadalka qaatay Aadan Cali Olol oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Buuhoodle hal habeen buu joogay markii xilka laga qaaday markii uu gar oo tagay markii horena waxa uu yiri waxaa jirtay muxuu Khaatumo iyo Khayaamo ayaa jiray buu yiri dawaa runtii waa sidoo hadalka u dhigay Khaatumo iyo Khayaamo jira Khayaamadu waa mid uu watay weeye asagoo waliba aan madaxweyne uga dhigin ilaahay ma arkayo waxaa dadkii bariga hore ku ducaysan jiray ilaa uu sabanka tagay hirdidii haraatidiisa iyo ka soo socda hirdidiisa laga dug horta kii sii socday sabankii sii socday haraatidiisa wuxuu ku dhacay ninka Axmed Karaash iyo xarishire iyo nooca kuwa la socda haraatidii kuwaasay ku dhacday hirdidina waxay ku dhici doontaa kuwa la socda ninka Cabdiraxmaan Faroole baa hirdidina ku dhici doontaa isagaa hirdidaya markuu sii dhacayo iibsaday ee ku talagalay inay wax kale ka yara doortay waxa weeye Khaatumo ma aha wax qarsoon waxaa la isugu yimi mar hore oo ka horreysay hadeer magaalada Taleex ee taariikhiga shir weyn baa lagu qabtay waxa weeye waxaa lagu dhisay maamulka Khaatumo بلود ويلو وله بليغا كان فيلو بيران شابينو وله بليغا كان فيلو بورتقافو وله بليغا كان فيلو بليغاتا هنقاري كان هيرو بنان بشكا بادنا يا بشكا جترا madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo isaguna ka hadlay banaanbaxan maanta ayaa ka hadlay arrimo dhowra inta mas'uuliyiin la saaray mas'uuliyiintiisa ka bixi waayay dabeedna maxay ahayd sidii ku shaactay muqaalaha la fadhiisan ma aha Khaatumo intuu ka cararay qulun kale u tagay waa qulun kale u tagay hadii kaleey waxaan xoreynaya marka laamiga dhinac u raacaya adeer waa ka xamaatay waa loo wadaan ku leeyahay waxaan uga gudbayaa intaa waxaa kaloo maqlay in la leeyahay dibkeeda leeyahay doorashooyinka la soo taagaya dibkeeda leeyahay lascanood iyo deegaanka la haystaan xoreeyna haddii maxay ahayd waxaa layga dhigaamo waxaa la siiyo waxaan la yaabanahay markii aan xilka dadka caynkaasi cidi uga sarreyn halka ka Khaatumo aan cidi uga sarreyn xoreey waaye marka iyagoo dad kale oo inaga wada dal kale ah dibkeeda leeyahay hoos jooga waxay xoreynayaan bal la yaabanahay si kastaba ha ahaatee banaanbaxan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan waxaana arrimahan oo dhan ay ku soo beegmayaan xilli dhowaan Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo ka mid ahaa maamulka Khaatumo uu maamulka isaga baxay isla markaana uu ku biiray maamulka Puntland